diyaarad ee leedahay qaramada midoobay ayaa meedadka askarta Uganda ka dejisay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala waxaana dabadeed naxashadaasi meedadkaas lagu dadgureeyay gawaarida ambalaaska ee leeyihiin militariga Uganda Kampala waxa ay sheegtay in 12 askari ay ugu dhinteen weerarkii isbuucani kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen xerada Janaale 10 kalena ay ku dhaawacmeen wararka qaar ayaa sheegay in dhimashadu inta ka badan tahay ay gaarsiisan tahay ilaa 50 waxa uu yiri Al-Shabaab markasta dib ay isku soo arursanayaan marka hadii aan idiraahno waan wagnay waa dib sidaasi balse taasi marmarka qaarkood ka mar istaagayso in nasiibkooda caawiyo oo weerar noocan oo kala ay geystaan ayuu yiri goobta ay weerarka ku qaadeen Al-Shabaab ee xerada ciidamada Uganda ee Janaale waxa boqosho ku taga taliyaha ciidamada militariga dalka Uganda General Edward Katumba waxaana uu ku bogaadiyay dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab waxaana uu sheegay in baaritaan lagu sameeyo doono xaq asnaan ku jirtay in kale qaabka ciidamadiisa uga jawaab celiyeen weerarkaasi